بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa xulka wararka fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe inoo saar muuqaalkana like gare oo share gare gambaleelkana furo si aan wararka iyo warbixinada aan halkan u soo dhigno aad durbaba aad u heshid Yuusuf Dabageed oo war ka soo saaray kursiga la sheegay in uu Fahad Yaasiin uu u rabo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaa daawan doontaan Cali Cosoble madaxweynihii hore ee Hirshabeelle oo shaaciyay sabab aan lagu boobi karin doorashada beledweyne taalayana waan idiin soo gudbin doonaaye hadduu rabweyne qadaro sidoo kale waxaa daawan doontaan Axmed Qorqor oo looga digay qorsho uu ka rabo kursiga xildhibaan ee isku hayaan Mahad Salaad iyo Cali Yar Cali iyana waan idiin soo gudbin doonaaye warbixin amuurtaasi qusaysa yaa ku soo baxay doorashada kuraasta hoob 25 iyo hoob 81 iyana waan idiin soo baahin doonaa iyo Cornel Nuur Dheere oo raali geliyay Cali Guudlaabe qodobadii nagu soo kordho ayaad barnaamij wareedka iyaga ku daawan doontaan markale waxaan idinka codsanayaa in aad markaasi haddii aad nagu cusub tahay inaad channelka subscribe inoo saartid muuqaalkana like gare oo share gare si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u niyad wanaagsan mahadsanid haddii aad codsigayga iyo tixgelisay markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirasaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ugu digay in uu shakhsi gaar ah u xiro kursiga uu tiriskiisu yahay hoob 147 kursigan oo deegaan doorashadiisu yahay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in loo xiray Mahad Maxamed Salaad oo ah xildhibaanka hadda ku fadhiya kursigaasi waxaan rabnaa xaqiiqda jirto oo run ah in aan ka hadalno kursiga hoob 147 maamulkiisa iyo taladiisa waxaa iska leh jufada la yiraahdo Bahda Ina Xasan markii hoos loo sii degana jufooyinka ka kooban ayaa iska leh maamulkaasi ninka la yiraahdo Qorqor oo madaxweynaha Galmudug ah isagu ma lahan mana maamuli karo shaqana kuma lahan ayuu yiri Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirasaaq ayaa tilmaamay in 16 sano ee la soo dhaafay ay kursigaasi isku bedelayeen qoyska Maxamuud Salaad Tarabi iyo Mahad Maxamed Salaad oo wiil iyo adeerkii ah kursiga hoob 147 mar waxaa 8 sano hayay oo ku fadhiyay Maxamuud Salaad Tarabi muddadaasi uu jooga si kastaba ha ku joogay waa laga soo gudbay 8 sano ee ku xigtana waxaan isla ognahay in 4 sano ee ugu horeeyay ay niman ganacsato ah ka boobeen dadkii iska lahaa iyada oo dadka oo dhan ay taagan yihiin oo la leeyahay haloo tartamo ay habeen madow la guureen 4 sano ee xigtana mar aan cadaadad tagna dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ayaa dhaqaale iyo farsamo xoogan iyo xeeladba ugu qaaday Mahad Maxamed Salaad ayuu suldaanka yiri waxa kaloo uu yiri 16 sano kursigaasi soo ma dhaafin raaska ama qoyska Maxamuud Salaad Tarabi iyo Mahad Maxamed Salaad Tarabi dadka uu kursigaasi ka dhaxeeyo waxay xaq u leeyihiin in ay kursiga u tartamaan waxayna xaq u leeyihiin in ay wax doortaan iyo in la doorto marka caafimaadka ummadan waxa uu ku jiraa in kursigan wareego oo loo tartamo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri waad ogtihiin kursigan wuxuu ka dhaxeeya Babaanshe Suubiye iyo Ayaale bahdaasi Ina Xasan la yiraahdo ayuu ka dhaxeeya ceer kaloo talo iyo tusaale ku leh ayaa jira oo xaqna u leh in ay ku matalo marka kursigaasi asaga ah in hebel loo xiray Qorqora xiray iyo Mahad Salaad baa loo xiray la yiraahdo waa dulmi cid laga yeelayo iyo cid laga aqbalayna ma jirto ayuu leeyahay suldaanka Suldaan Mahdi ayaa madaxweyne Qorqor ugu digay in uu iska horkeeno dadka wada dhashay shakhsi gaar ah oo kursigaasi u xiranna aysan hadhow ay ka saari doonin waxaan rabaa in marka hore Ilaahay laga cabsado dadka aan fidno laga dhex aboorin madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor waxaan leeyahay ganacsatada timid iyo beelaha kursigaasi kula saaxiibay ma ka bixinayso eedaasi nin muslim ah hadaa tahay umada ha isku dirin dana dhaqaalana
ha ka dhex raadin ayuu yiri Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirasaaq. Suldaan Mahdi ayaa hoosa ka xariiqay in magacyadooda sheegi doonaan ganacsatada uu sheegay in ay kursigaasi u xaglinayaan dhanka Mahad Salaad haddii aysan ka waantoobin boobka ay ku hayaan. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta ayaa fahansan in guddiga doorashada Galmudug ay doonayaan in ay ka fogaadaan wax kasta oo eedeemo ugu imaan kara maamulka kursigaasi, hase yeeshee uu cadaadis ka haysto dhanka madaxtooyada Galmudug, taasi oo liddi ku ah habraacyadii doorashada ee horaan lagu heshiiyey. Kursigan ayaa doorashadiisa la qaban doonaa Axadda ina soo aadan hadduu Rabbi weyne qadaro. Markan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa si adag u beeniyay in xiriir uu kala dhaxeeyo ciidamada ay dhawaan dowladda federaalka geysay magaalada Beledweyne iyo safar la filayo in uu magaaladaasi ku tago taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin ayaa la fahansan yahay in uu xusul duub ugu jiro kursiga tiriskiisu yahay hoob 86 kaasi oo hadda uu ku fadhiyo xildhibaan Faarax Sheekh Axmed Cabdulqaadir aan iraahdee Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed, sidoo kalena ah musharax mar kale u taagan tartanka doorashada ee kursigaasi. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee la geeyay Beledweyne ay Fahad Yaasiin u boobayaan kursigaasi. Horta kursi shakhsiyad oo Beledweyne yaala ma jira. 25 kursi ee taala kursi walba qabiil ayaa iska leh. 101 qof oo qabiilkaasi ah ayaana dooranaya kursi kasta oo kuraasaasi ka mid ah. Intaasi oo qof ayaa ku tartamaysa. Qofkii Ilaahay xaqiisa u qoro oo Ilaahay u calfo qabiilkiisuna dooto ayaa madax noqonaya ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Yuusuf Dabageed oo la hadlay warbaahinta ayaa yiri kursiga uu Fahad wax ka leeyahayna kuraasaasi ayuu ka mid yahay ee kursi gaar ah uu Fahad leeyahay ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortaan Fahad xildhibaan ayuu noqonaya. Haddii qabiilkiisa cid kala dooratana dadka la dooran waaye ayuu ka mid noqonaya. Ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle. Wuxuu intaasi ku daray dad dana gaar leh oo dowladnimada Soomaaliyeed in uu cambaareeyo kaliya ay shaqadiisu tahay ama xil ku raadinaya weeye waxaasi sheegaya. Kursiga hoob 86 ayaa ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee sida dhow isha ay ugu wada hayaan bulsho weyn fara badan. Sidoo kalena madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble oo ka hadlay doorashada lagu qabanayo magaalada Beledweyne ayaa sheegay inuu aad u yartahay suurtagalnimada in dad gaar ah loo boobo kuraasta. Waxa uu sheegay in hanaanka doorashada ee Beledweyne isha lagu wada hayo maadaama dhawaan la shaaciyay in heshiis ay ka gaareen xiisada taagneed madaxweynaha Hirshabelle iyo beesha halkaasi degta. Uma maleynaya in dadkii oo taagan la boobi karo kuraastooda oo sida la og yahay Beledweyne waa magaalo ay sahlan tahay in ay xasarad ka kacdo oo meeshaasi buuq ka yimaado haddii ay dadku arkaan in doorashada hanaankeeda la leexiyo ayuu yiri. Sidoo kale Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa yiri ilama ahan in madaxweyne Cali Guudlaabe uu Beledweyne u aaday in ay ka dhacdo doorasho dulmi ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in shakhsiga ugu weyn ee ku gadaaman doorashada Beledweyne ay tahay kursigu uu doonayo Fahad Yaasiin oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Hase yeeshee ay adag tahay in xilligan kursigaasi hanaan boob qaawan ah lagu saaro Fahad maadaama ay aad u soo jeedaan dadka reer Beledweyne oo indhaha ay ku wada hayaan hanaanka loo maamulayo doorashada. Cali Cosoble ayaa hore ugu baaqay in laga wada shaqeeyo sida magaalada Beledweyne ugu dhici lahayd kuraasta doorashada golaha shacabka xilli ay muddo 2 isbuuc ah ka harsan tahay waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo. Si kastaba doorashada Beledweyne ayaa ah mid si weyn indhaha loogu wada hayo iyada oo Guudlaabe uu ballan qaaday in doorashada ka dhacayso magaaladaasi oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi ayna noqon doonto mid daahfuran oo cadaalad ah. Ugu dambeyntii waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe inoo saar, muuqaalkana like gare oo share gare, qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf waa inoo muhiim balse daawada inta laga gaarayo muuqaalkan kiisa xiga Rabbi idinkii nabadgeliyo.